wuxuu sameeyay suuq madow. He was a kingpin. oo lagu eebiyo nooc kasta oo darooga ah. A hidden marketplace. hadday tahay mid la liqo, mid la nuugo, mid la isku mudo ama mid la cabo. Anything for a price. wuxuuna ka ganacsan jiray hubka. Bitcoin fueled it. sidoo kale xubnaha bini'aadamka. Anonymity protected it. iyo wax kasta oo sharci darro ah. The dark web hid it. taasoo ka ganacsata dilka. Mistakes exposed him. haddaba yaa sameeyey mareegta? Why Bitcoin? sideese loo soo qabtay? What caused its downfall? muxuuse u sameeyey suuqa mase u qalmaa xukunka? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaynu jawaab ugu dooni doonaa xalqadeenan xogdoon oo ku saabsan aasaaska suuqii sharci darrada ahaa ee internetka madow ee Silk Road. This is the story of Silk Road and its creator, Ross Ulbricht. sanadkii 1984 bisha Maarso 27 waxa ku dhashay magaalada Austin ee gobolka Texas wiil yar oo loogu magac daray Ross. wuxuuna ka dhashay qoys dabaqada dhexe ah. yaraantiisina waxa uu ahaa wiil yar oo caqli badan, xariifna ah. kolkii uu weynaadayna sidoo kale isagoo la sheegay markuu 25 jirsaday inuu qaatay shahaadada masterka oo uu ku takhasusay culumta sayniska, isagoo ku soo shaqeeyay xirfado iyo boqosho shaqo oo kala duwan. waxaana la sheegay ilaa yaraantiisii inuu jeclaa kombiyuutarka iyo isticmaalkiisa oo la sheego inuu isbaray qaabka wax loogu dhiso ama borograamyo yaraantiisii. wuxuuna isku dayi jiray kuna hamin jiray inuu mar uun sameeyo mareeg ama suuq xor ah oo ayna cidi maamulin, dowladnina xukumin. kadib isku dayo fara badan oo mashaariic kala duwan ah iyo shaqooyin aanay naftiisa ku qancin jeclaysanna, Ross waxa uu ugu dambeyn helay fikradda ah inuu sameeyo suuqa sharci darrada ah ee uu u arkayay isagoo xornimo. wuxuuna sanadkii 2011 bishiisii January sameeyay mareeg ugu magac daray Silk Road. lana soco suuqani ma ahayn mid la mid ah suuqyada caadiga ah ee wax laga iibsado internetka sida Amazon, eBay iyo kuwa la midka ah, balse waxa uu ahaa mid qarsoon oo aan si fudud loo geli karin, internetka caadiga ahna aan ku jirin, kaasoo lagu geli karo software gaar ah oo loo yaqaano Tor, kaasoo qarinaya cidda tahay marka aad isticmaalayso, ahna mid aan lagu soo dabageli karin marka aad wax ka iibsato suuqa. waxaana la sheegaa in ciidanka Mareykanku dhiseen softwarekaas sanadkii 2002 si ay iskula xiriiraan basaasiinta iyo sirdoonadu. sidoo kale suuqan waxa uu ku jiray internetka qaybtiisa madow ama qarsoon ee loo yaqaano dark web oo aan si fudud loo geli karin. waxayna mareegta Silk Road ahayd mid uu ugu talagalay in wixii la doono iyo qofkii doonaaba uu wax ku iibin karo kana iibsan karo, taasoo ahayd bilaa xakame iyo bilaa maamul iyo bilaa dabagal. si uu u dhisase waxa soo wajahay Ross caqabado, ilaan waxa uu rabay hadafkiisuna ahaayeen cidi soo dabagelin oo ma isticmaali karo bangiyada iyo qaababka caadiga ah ee lacagta la isku weydaarsado, taasi oo keentay inuu isticmaalo nidaam lacageed oo markaa cusbaa oo la odhan jiray Bitcoin oo si fudud u ogolaanaya inuu si qarsoon wax loogu kala iibsado mareegta, isagoo caawin ka dalbaday dad takhasus u lahaa Bitcoin oo uu u bandhigay inay caawiyaan, isagoo u sheegay inay kala soo xiriiraan emailkiisa shakhsiga ah oo ku lifaaqnaa codsiga shaqo, kaasi oo noqon doona khaladkii ugu horreeyay uguna weynaa ee uu geli doono oo keeni doona xidhitaankiisa. sidoo kale wuxuu caawin ka dalbaday inay saaxiib ahaayeen oo la odhan jiray Rich oo isna ahaa khabiir ku takhasusay waxna ka yaqaana qaabka loo dhiso mareegaha, isagoo u sheegay waxa uu samaynayo iyo mareegta uu dhisayo oo ahayd mid sharci darro ah. sidoo kalena Ross waxa uu la wadaagay shaqadan uu gacanta ku hayo qoftii ay wada socdeen markaa, isagoo tusay mareegta iyo sidoo kale mushroom darooga ah oo uu beertay si uu ugu dhaxeebiyo mareegta marka uu furo, kaasoo markii dambe noqday meel daroogo walba lagu iibiyo lagana iibsado, hadday tahay mid la isku mudo, la cabo, la liqo amaba mid la nuugo, taasoo keentay in qof kastaaba wax ku dhaxeebin karo mareegta walow ay jireen nidaamyo hubina. wuxuuna aaminsanaa Ross in qof kastaaba xor u yahay waxa uu jidhkiisa ku samaynayo iyo waxa uu qaadanayo, taasoo keentay markii dambe in mareegta lagu dhaxeebiyo hubka kala duwan ee sharci darrada ah sida qoryaha iyo baastooladaha, oo markii dambe uu xaqiiqsaday inay halis ku yihiin suuqiisa kana saaray meesha. wuxuuna kaliya u baahnaa markaa inuu u helo macaamiil kala duwan oo iibsata alaabaha kala duwan ee lasoo dhigo mareegta. wuxuuna u baahnaa sidoo kale in warka suuqa uu gaadho dad fara badan, taasi oo ileen ma aha suuq la mida suuqyada caadiga ah oo looma samayn karo idhah ama xayeysiis, balse wuxuu isku dayay inuu si qarsoon uga xayeysiiyo mareegtiisa internetka madow, isagoo iska dhigaya qof kale. waxa uu ku qoray boostiyo iyo
qoraallo kala duwan oo uu leeyahay talow suuqa maleela arkay wuxuuse uga dan lahaa qoraalka inay dadku ogaadaan mareegta waxna ka iibsadaan taasi oo keentay markii dambe inay dadyo kala duwan soo booqdaan mareegtiisii oo rabay inay ogaadaan meeshu waxa ay tahay kana war keenaan kadibna ay wax ka iibsadaan. ka warransa daawada haddii uu samayn lahaa xayeysiis sidan buu noqon lahaa. ma rabtaa inaad nolosha ka dhacdo sarkhaanto amaba jawi kala gasho mase xiisaynaysaa inaad xubno bini'aadam cunto amaba hadhcad soo afjarto qofaad saniftay? hadday jawaabtaadu tahay haa oo tahay loomo ooyaan ka hela suuqyada madow soo booqo suuqayaga Silk Road oo aad ka helayso wax kasta oo sharci darro ah hadday tahay cudurro iiba amaba carruuro la soo xaday. sidoo kale casharo aan lagu dhigin iskuullada iyo hub aan lagu eebin dukaamada. sidoo kale waxaad ka dalban kartaa basaasiin iyo calooshoodu shaqaystayaal diyaara. sidoo kale waxaanu eebinaa nooc kasta oo ay darooga tahay sida mid la cabo mid la nuugo amaba mid la liqo amaba mid la isku mudo. haddaba hadda dalbo oo hadda hel waxaad doonto adoo aqalkaaga jiifa horena u gaadh hoyga laga helo wax kasta oo xun. mareegtii Silk Road warkayga waa faafay wayna kala kacday. dad badan baana ku soo biiray si ay wax ugu dhex iibiyaan ama wax uga iibsadaan. warkaygina waxa uu gaadhay dhammaan daafaha internetka taasi oo keentay in dadka wax ku dhex iibiya loo sameeyay nidaam lagu review gareeyo wax iibkooga iyo aaminaadooda sida suuqyada caadiga ah ee Amazon ama eBay. qofka wax ka dhex iibsada mareegtana waxa lagu geenayaa daroogadiisa gurigiisa oo loogu delivery gareynayay iyada oo lagu qarinayay daroogada ashyaa kala duwan si aan loo dareemin sida kartoono aan nifaaq ama tixraac lahayn si aan cidda soo dirtay loo ogaan cidda iibsanaysana looga shakin. taas oo muddo sidaa uu ahaa ganacsiga mareegtu markii dambena keentay in laga shakiyo oo sida la sheego dowladda iyo ciidanku waxa ay arkeen dalabaad fara badan oo ka imanaya hal meel iyo karatoon aan lahayn nifaaq cidda soo dirtay oo markii ay fureenna waxay ku dhex arkeen wax ka yaabsado oo ahaa daroogo noocyo kala duwana kana timi waddanka Netherland oo ku caan ah daroogada la dhoofiyo. markii ay dabagal ku sameeyeen dalabkana waxa ay u sheegeen dadkii iibsaday inay ka iibsadeen daroogada mareeg qarsoon oo la yiraahdo Silk Road iyada oo markii dambe ciidankii iyo dambi baarayaashii xaqiiqsadeen in suuqan sharci darrada ah uu yahay mid ku halis ah dalka iyo shacabkaba. warkii suuquna wuxuu ahaa mid faafaya maalin ka dambeeya iyada oo ay meel walba ka dhacday caana noqotay oo cid waliba baratay taasi oo keentay inay sii xoogaysato ganacsiga ka dhex socda suuqa taasi oo keentay inay ciidanka ku badato cadaadiska inay xidhaan suuqan ilbaabadana isugu dhuftaan taasi oo keentay in xildhibaano iyo xubno ka tirsan dowladdu ay si cad u soo jeediyaan in la xidho mareegtaas lagana saaro hawada taasi oo keentay in Ross saaxiibkii uu sheegay inuu xidho mareegta hawadana ka saaro intaan isaga la xidhin. dhanka kale gabadhii ay wada socdeen iyana waxa ay Ross u sheegtay inuu xidho taas oo ku keentay warwar iyo cabsi joogto ah waayo waxa ay ogayd inay halis tahay waxa uu wado qofka ay wada socdeen isagoo been u sheegay markii dambe si uu u dajiyo isagoo uu sheegay inuu qof kale ka iibiyay oo aanu haba yaraatay wax shaqo ku lahayn mareegta hadeer isagoo markaa ka guuray Mareykanka una guuray Australia si uu ula noolaado walaashiis oo halka ku noolayd. kolkii uu Australia u guurayna waxa la soo xiriiray qof sheeganaya magaca Jones oo noqday gacan yarihiisa iyo caawiyihiisa kolkii ay isbarteen kaasoo ka caawin jiray suuqa iyo waliba iibkiisa kala duwan iyagoo aan isaqoonin bayna saaxiibeen wada shaqeeyeen isagoo markii dambe la wadaagay Ross galdaloolada mareegtu ay lahayd iyo meelaha ay ka jilicsanayd taasi oo keentay markii Ross uu la wadaagay inuu xalliyo oo uu saxo hubiyana ammaanka website-ka taasi oo uu xidhxidhay ama qufulay faylashii kala duwanaa ee mareegta iyo inuu samaysto qorshe haddii la qabto uu ku baxsan karo sidoo kalena uu ku bakhtiin karo kombiyuutarkiisa haddii loogu dul yimaado oo uu ku kala tuuri karo. sidoo kale Jones waxa uu soo jeediyay in Ross uu samaysto magac afgarasho oo loogu yeedhi karo magacaas oo uu ku soo caanbaxay ahaana Dread Pirate Roberts. kaasoo markii dambe noqday magacaana 2 sano gudahoodna waxay noqotay mareegtii Silk Road inay ku soo biiraan dad gaadhaya 100,000 oo qof sidoo kalena ay ka dhaxdhacaan iibsi lacag lagu qiyaaso 300 milyan oo la sheegay inuu Ross ka macaashay ku dhawaad 13 milyan sababtoo ah inuu ku lahaa macaash wax kasta oo lagu dhex iibiyo website-ka ama dulsaar ahaa 15%. dhanka kale ciidanka iyo dambi baarayaashii waxa ay ku dawaqeen oo baadhayeen cidda maamusha meeshan khatarta ku ah dalka iyo shacabkaba.
iyagoo rabay inay ogaadaan aasaasaha mareegta ee magaciisu yahay Dread Pirate. taasina waxay keentay in hay'adaha kala duwan ee sirdoonka ama dambi baadhidu ay ku tartamaan qabashada cidda samaysay mareegta si ay u fahmaan qaabka ay u shaqayso mareegtu. waxa ay iska dhigeen macaamiil meesha wax ka iibsanaysa oo la sheego in ku dhowaad 250 dalab ay sameeyeen si ay u fahmaan sida ay u shaqayso mareegtu. sidoo kale waxa ay baadheen oo qabteen dalabyo kala duwan iyo karaaton darooga oo loo waday dad ka dhex dalbaday website-ka, taasi oo keentay in ciidanka xirxidhaan xogna ka raadiyaan. baadhidaas oo ahayd mid qarsoon rabeena inaanay ka fashilmin. kadib xidhitaano kala duwan oo ay sameeyeen ciidanku waxa ay heleen qaar ka mid ah dadka wax ku dhexeebiya mareegta markii ay dabagaleen alaabta meesha laga soo diray, iyadoo dambibaadhayaasha kiisku markii dambe ay ku guulaysteen inay qabtaan mid ka mid ah shaqaalihii mareegta oo ahayd gabadh, taasi oo ku qasbeen inay markii dambe u wareejiso akoonkeega maamulanimo si ay isaga dhigaan iyaga una adeegsadaan akoonkeega oo u ogolaan inay sistamka gudaha u galaan bartaana qaabka ay u shaqeeyaan shaqaalaha. sidoo kale xubno kala duwan oo ciidan ah oo jooga goobo kala duwan ayaa dabagal ku waday website-ka oo sida la sheegay xiriir la lahaa aasaasaha iyo shaqaalaha kala duwan ee suuqa. dambibaadhe Carol oo iska dhigayay inuu yahay ganacsade daroogo oo magaciisa afkarasho ahaa Noob oo ku noolaa dalka Dominican Republic, isagoo oo la saaxiib ahaa Ross si toos ah oo aan markaa ogeyn inuu ciidan yahay, isagoo oo markii ay isbarteen dambibaadhihii ku qasbay Ross in lacag 50,000 uu soo diro oo Bitcoin si uu u siiyo xog xasaasi ah, isagoo oo markii dambe la xaqiijiyay in askarigu ahaa caada qaate lacagtaana ku shubtay akoonadiisii shakhsiga ahaa. sidoo kale iyana waxaa la sheegay oo la ogaaday inay jiraan ciidan kala duwan oo laaluush ka qaatay mareegta ahaana caada qaatayaal iyo ciidan khariban sida Basaase Sean oo ahaa dambibaadhe isna kiiska gacanta ku hayay oo ka qaatay kana xaday lacag kadib markii ay xidheen mid ka mid ah shaqaalaha mareegta oo la odhan jiray Green, isagoo dambibaadhe Sean la sheegay in lacag ku dhowaad 20,000 ka shubtay akoonka Green. kadib markii uu ku baraarugay Rossna inuu dhacan yahay, waxa uu mooday in shaqaalihiisi ay khiyaameeyeen, isagoo oo markaa dalbaday in la dilo ninka dhacay ee u shaqaynayay oo uu garanayay cidda uu yahay, waayo qof kastoo ka shaqeeya mareegta waxa uu hayay xogtiisa iyo cidda uu yahay, taasi oo u sahashay inuu u dalbado hitman si uu u dilo. taasi oo keentay inuu u soo diro sawir been ah oo ahaa meydka Green, balse markii dambe la ogaaday inuu ahaa dhiig been ah iyo jilliin. dambibaadhayaashina weli kumay guulaysan inay soo qabtaan cidda website-kan samaysay. kadib muddo sanadahoo dabagal iyo baadhitaan ay ku jireen, waxa ay ugu dambeyn ciidankii xaqiijiyeen meesha ay yaalaan serveriska uu ku xidhan yahay nidaamka mareegtu oo la sheegay inuu yaalay dalka Iceland. sidoo kalena waxa ay heleen galdaloolo iyo meelo ka jilicsanaa nidaamka suuqu, iyadoo oo markii ay serveriska heleen ay ka heleen xog fara badan oo ku saabsan qaabka wax loogu dhexeebiyo iyo weliba cidda wax ku dhexeebisa iyo sidoo kale weliba cidda samaysay kombiyuutarkiisa iyo meesha uu ka isticmaalo, oo ay heleen in kombiyuutarkiisa lagu magacaabi jiray Frosty afkarasho ahaan. qofka isticmaalaya ama maamulayaana uu joogo San Francisco oo uu markaa Ross ku sugnaa si ugula noolaadan inay saaxiib ahaayeen, wuxuuna ahaa mid ogsoon waxa uu gacanta kula jiro oo taxadirkiisu sarreeyo si aan loo soo qabanna sameeya ficilo kala duwan iyo hubsiimo fara badan, balse khaladaha yaryar uu galay ayaa keeni doona in la soo xidho. waxaana la sheegaa maalmaha ka mid ah in dambibaadhe kiiskiisa ku jiray, isagoo maalin baadhe Google uu helay arkayna boosti iyo qoraalkii ugu horreeyay ee lagu xayeysiinaya mareegta Silk Road. boostigaas oo aynu soo xusnay isagoo iska dhigayay qof kale isticmaalayayna magaca afgarasho oo ahaa Altoid. sidoo kalena wuxuu arkay boostiga codsigii shaqo ee uu shaaciyay Ross markii uu u baahnay in laga caawiyo Bitcoin, oo uu ku dhex arkay email ku lifaaqan boostiga kaasi oo ahaa emailka shakhsiga ah ee Ross oo ahaa rossalbert@gmail.com, oo ugu dambeyn xaqiiqsaday dambibaadhihii inuu yahay cidda ka dambaysa ama samaysay website-ka Silk Road, balse wax caddayn uma haynin oo uu ku soo xidhi karo ilaa maalintii dambe uu la wadaagay dambibaadhe kale magaca uu helay iyo weliba baadhitaankiisii. kadib markii ay baadheenna waxa ay heleen akoonno kala duwan oo shakhsi ah sida barihiisa bulshada oo ku isticmaali jiray, waxayna arkeen inuu yahay wiil dhalinyaro ah oo waxbartay. waxayse isweydiinayeen talow ma yahay sameeyaha website-ka mise ma aha. sanad kadibna waxay ciidankii heleen idyo beena oo lagu qabtay custom, kuwaasoo ahaa qof samaysanaya magacyo kala duwan. kadibna ciidankii waxay booqdeen meeshii la geynayay idiyada, waxayna waraysi la yeesheen Ross oo lahaa idiyadaas. intaa kadibna baadhitaan dheer oo ay sameeyeen waxa ay dareemeen inay wax ka khaldan yihiin Ross, oo markaa ay ka dareemeen cabsi
jimicsi iyo boqosho isagoo markaa dafiray ay dhiigii beenta ahaa markii ay sii daayeenna waxa uu isku dayey inuu ka baxsado dalka gebi ahaanba kadib markii uu sheegay inuu ka iibsaday aydhiyada mareeg la yidhaahdo Silk Road. intaa kadibna waxay sugayeen dambibaarayaasha cadaymihii ay hayeen waxa ayna xaqiiqsadeen markaa in Ross uu yahay asaasaha mareegta iyo laba wajiilaha sita magacyada dhowrka ah, taasi oo keentay in dabagal lagu sameeyo si loo helo cadaymo kala duwan oo lagu soo xiri karo, waayo haddii ay markaaba xabsiga dhigaan ma helayaan haba yaraatee wax cadayna oo ay ku xukumi karaan. muddo kadibna waxa ay go'aansadeen dambibaarayaashii ogaadeenna inuu yahay isaga, waxa ayna go'aansadeen inay soo xidhaan qabtaanna dambiile Ross oo ay gacanta ku hayaan. si ay u qabtaanna waxay isla qaateen inay gacanta ku dhigaan isaga oo isticmaalaya kombiyuutarkiisa uuna furan yahay kuna jira akoonadiisa maamulanimo, waayo haddii ay qabtaan kombiyuutarkiisa oo furan waxa ay ka heli karaan cadaymo fara badan. si ay u soo qabtaanna waxa u fudaydiyey akoonkii maamulanimo ee gabadhii ay ka qaadeen. kadib markii ay xaqiiqsadeenna heleenna cadaymo ku filan, galab ay bisha Oktoobar tahay 1 sanadkii 2013 ayay go'aansadeen inay soo xidhaan Ross, waxaana markaa la soo hadlay dambibaarihii Ross iska dhigayay maamulaha mareegta. inta uu la hadlayeyna waxaa sidoo kale meesha ku sugnaa ciidan dharcada oo rabay inay xidhaan, iyagoo ciidankii sameeyey qorshe cajiib ah oo sida la sheego gabadh ku jirtay librariga ayaa hal mar kacday korna u qaylisay caydayna nin hortaagnaa. halkaana waxaa ka biloomay dagaal iyo rabshad, taas oo keentay Ross markii uu dareemay inuu ku jeedsado. markuu saa ugu jeedsaday dagaalkiina Ross hal mar uunbaa kombiyuutarkiisii laga hoos saaray. markii uu Ross ku baraarugayna waxa uu ku booday ninkii xadayey, mise waxa kaba daba yimi nin kale oo Ross qabtay gacmihiisa isagoo halka dambe kaga yimi oo labadiisa gacmood isku qabtay. intaa kadibna waxaa sidaa lagu xidhay Ross. dambibaarayaashiina waxa ay heleen kombiyuutarkiisii oo furan, ileen dagaalkuba been buu ahaa, xatooyaduna sidoo kale, oo meesha waxa joogayba waxay ahaayeen ciidan dharcada, cidda dagaalamaysana waxa ay ahayd ciidan. intaa kadibna markii la xidhay qoyskiisii waxa ay ku baraarugeen goor dambe markii looga yeedhay saldhigga, taasi oo ku noqotay fajac iyo arrin ay u qaadan waayeen in wiilkoogii aqoon-yahanka ahaa uu noqday darooga ganacsade iyo dambiilo weyn. kadib muddo markii uu xabsiga ku jiray ee u dhexeeyey maxkamadda iyo xabsiga, waxa ugu dambeyn lagu xukumay xabsi daa'in iyo in cimrigiisa dhalinyaranimo uu ku qaato xabsiga iyadoo aan haba yaraatee la siinayn wax cafisa, iyo haddii cafis uu yimaado 40 sano oo dheeraada in loogu daro xukunka, taasi oo micnaheedu ahaa inuu xabsiga ku dhex dhiman doono. xukunkiisaasina waxa uu noqday mid caan ah, dad badanina ay ka mudaharaadaan, siday sheegaanna uu ahaa midaan u qalmin, isaga oo markaa u cataabay qaadigii xukumayey, balse looma jixin oo waxa lagu fuliyey xukunkii. waxaana lagu xukumay Ross xabsi daa'in 1 sano iyo 8 bilood kadib maalinkii la soo xidhay. sidoo kale waxaa wada laga saaray mareegtii Silk Road. muddo kadibna ninkii ay saaxiibka ahaayeen ee Jones isna waa la xidhay, waxaana lagu xukumay isna xabsi dheer, loomana jixin dhammaantood si tusaale looga dhigo cid kastoo isku dayda inay samayso meel sariic darro ah. Rossna maanta waa 41 jir, cimrigiisa inta ka dhiman ku qaadan doona xabsi. isku dayada in la sii daayaana weli may joogsamin, waxayna dad badani aaminsan yihiin inaanu xukunka u qalmin, balse shakhsi ahaantayda waa uu u qalmaa xukunka, waayo mareegta uu sameeyey waxa ay keentay dhimashada ku dhowaad 6 qof oo ku dhintay daroogadii ay ka iibsadeen mareegta. sidoo kalena waxa ay beertay jiilal dhan oo la qabatimay daroogada noqdayna draaga dhigti. sida la sheegayna dadka u dooda waxa ay hordhigeen madaxweynaha cusub ee la doortay Mareykanka inuu cafiyo, welise waa laga warsugayaa inuu cafiyo dambiile Ross. intaan ku jira diyaarinta muuqaalkan ayaa Ross la cafiyey. nasiib wanaagna maanta waa nin xor ah, waxaana cafis u fidiyey madaxweynaha cusub ee qabsaday dalka Mareykanka ee Donald Trump, kaasoo soo dhigay qoraal uu cafis ugu fidinayo bartiisa bulsheed ee Truth Social oo xabsiga laga sii deynayo. sida uu marar badan ku cataabayna, Ross waxa uu ka xun yahay fudaydkii dhalinyaranimo ee qaaday iyo ficilkii qaribnaa ee uu galay, taasoo ay ka dhalatay in cimrigiisii 11 sano oo ka mid ah uu ku dhex qaato qol yaroo madow oo xabsi ah, kaasoo lagu jirdilay jir ahaan iyo ruux ahaanba, taas oo ay sabab u ahayd aasaaska suuqii madoobaa ee Silk Road. haddii xabsiguna yahay meel la isku carbiyo, waxa ila tahay Ross maanta waa nin carbisan, waxna kala garanaya, oo ilama aha inuu ku laaban doono jaxiimadii dirqiga iyo baryada lagaga sii daayey. haddii aad ka heshay xalqadanna fadlan like saar, lana wadaag asxaabtaada, kana mid noqo xerta xogdoon oo la soco xalqad cusub isbuuc kasta maalinka Jimcaad. waxayna ku soo afmeeri doonaa xalqadeennan jawaabta su'aal
la weydiiyey Ross oo ahayd maxaad samayn doontaa 5 sano ee soo socda oo uu ku jawaabay waxaan dhisi doonaa qoys 5 sano ee soo socda sidoo kale waxaan samaysan doonaa asxaab waxaanan muhiimadda saari doonaa cilaaqada aan la leeyahay dadka ii dhow. Pretty sure I want to start a family in the next 5 years. Yeah, make more friends and close people I love. Yeah, I want to focus on being more connected to people. I want to have had a substantial positive impact on the future of humanity by that time.